daawadayaal halkan waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeenii ra'yiga dadweynaha oo aynu su'aalo ka weydiin doono tobaleenka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xabibtu ku soo dhawow. waan ku dhaw macaanto qarane see waragtaa tobaleenka magaalada ka socda. wallahi horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan adiga iyo kamaradaystahaaga qaran waxaan u mahadcelinayaa horta wasiirka laga gaarsiiyay salaan waxaan leeyahay kulay waa bilicdi magaaladu noo dhisay maradama Laascaanood nahay dadku way isdul saarnaayeen bulshadii gawaadhidii iyo muxuu ahaayay ganacsatada dhaqada iska saarnaayeen wallahi waan soo dhaweynayaa barnaamijka waan ku faraxsanahay shacab weynaha magaalada Laascaanood ku dhaqan oo tobaleenkan aan fahansanayn maxaad fariin u diraysaa waxaan leeyahay shacabka magaalada inuu qurux badnaato ayaan jecelahay haleena la jeclaado dhammaantii shacabka Soomaaliya Sool haleena inagu ma bilicda leena siinaya wuxuu wasiirku qaadanayo maaha waan u mahadcelinayaa dhammaan aad baad u mahadsantahay cidoonay waan ku salaamayaa qalbiga salaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sidaad u aragtaa tobaleenka magaalada Laascaanood lagu sameeyay oo sanduuqadii laga duminayo munaasib baan u arkaa waana soo dhaweynayaa sidaad u aragtaa munaasib baan u arkaa waana soo dhaweynayaa يعني sidee u soo dhaweynaysaa maadaama ay dad jiraan sanduuqadahan ku ganacsan jiray maxaad u sababeynaysaa in magaalada ka bedeli karto u sabaynayaa in ay meelaha bannaan ay tagaan bedelkooda kale ee bannaan inay tagaan lambar 1ka waanu ka shaqaysan kari weynay dib badan bay nagu hayeen sanduuqadahani marka waan soo dhaweynayaa wasiirka hawsha uu qabtay aad baan u soo dhaweynayaa oo wasiirka ugu xaqooq badan waan leeyahay xukuumadda Soomaaliland aad baad u mahadsantahay wadika mahadsan bilow ila wanaagsan walaalo magacaaga warta balse soo waragtaa tobaleenka maalmihiisa dambe magaalada Laascaanood ka socda wasaaradda hawlaha guud iyo dawladda hoose runtii anigu waan ku faraxsanahay bilicda magaalada la hagaajinayo iyo muxuu ahaay dantay gobolka u wadaan dadku waxay leeyihiin sadaqadaha lagu dubi laakiin faa'iido ku jirta maxay tahay faa'iido ku jirta silaada bilic dhan baa soo baxaysa space bay magaalada yeelanaysa meel gaariyaashu kala leexdaan wax walba marka ayaad ku maadinaysaa dhammaan dawladooda waan ku hadlayaa allay halkaa ka sii wada iqaynayaan aad baad u mahadsantahay adiga wax sanduuqada ma lagaa dumiyo aad baad u mahadsantahay ku soo dhaw walaalo waa ku dhaweey walaal aad baad u mahadsantahay walaal sidaad u aragtaa tobaleenka magaalada ka socda wasaaradda hawlaha guud wado iyo dawladda hoose isgarabsanaya ما شاء الله ولا الوارف في عن وكنت جيرنا وسردها ولا جود يجرينته هوش أي كقبة تيمانتا قبل الرسول قارهان مقالة الأسعارات ونسود وين ده سودو بانلنا تشال وسير وعملنا وقبل كاجي وضل كاجي وضد كاجي إن هذا حقبة تنا ونكافلنا ونكاسوجنا ثانية متكسر بدلنا ونكاسوجنا إن شاء الله بإذن الله الكريم ما حد سلا ذي توبلينكم مقالة وكبدل كراعين لوضع wuxuu ka bedeli karaa waxa weeye haday sanduuqad ahayd haday xafash ahayd hadii aan garanaysaa ahayd waxyaabaha aan bilicda garanaysaa magaalooyinka aan ku fiicnayn oo kale waxyaabahaas oo kale weeyaan la dagaalanka tobaleenku waxyaabahan insha Allah wasiirku waa la dagaalamay waa la qaaday qofkii ka xumaan lahaa dadka qof wax garada ka xumaan maayo laakiin qofkii aan wax garadayn waa ka xumaanaya aniga waa laba meerood bay iga martay labadeeda ma sha Allah waxa weeye ilaahay baa dhulka iyo garanaysaa meeshii aan digi lahaa الحمد لله هذا مهرضات بلعدة كدورة مقالة بلعدة مقالة كدورة ولا الآديات ساس عاد بعض ما ستولا وهذا ما ولا المعنى أوكي ولا لا تعوضيال ولي وحين برتمها كجترنا برامج كني رأي جدد وينها كسر ولا لا عاد بنقول ولا صدوا عرقتا إن طبلًا كي وسردها ولها جودي دولته هو مقالة لسعنا ضي ودان سوى عنا وناكسن وحلا وقت السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله صدوا عرقتا وسردها ولها جود طبلًا كي وضي دولته هو anigoo ku hadlay walaal maasan tahay galab wanaagsan anigoo ku hadlay dhalinyarada aqoon-yahaniinta ee ku sugan magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool su'aasha laba siyaabood baan u arkaa qodobka koowaad waxa weeye in la helo bilic magaalo qurux badan oo waxa weeye bulshada ay dan u tahay wax qurux badan inay dadka waxa weeye indhahooda ku dhacaan qof kastaana waa jecel yahay runtii qof waxa weeye dhalinyaro oo aqoon-yahana kama hor imaan karo aad baad u mahadsantahay sidee baad u aragtaa bilicda magaalada maxaad sideeda ka bedelaysaa runtii aad baan u soo dhaweynayaa qodobka daawadayaal wali waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii ra'yiga dadweynaha ku soo dhaw walaalo waan dhawahay sidoo aragtaa tobaleenka magaalada Laascaanood laga waday wasaaradda hawlaha guud iyo dawladda hoose wallahi waxaan u arkaa ma sha Allah waxa weeye maanta maalin farxad badan weeye wasaaradda hawlaha guud waa maalinteedii iyo dawladda hoose ee degmada Laascaanood waxay noqdeen labaduba labadii Laascaanood ugu abaalka badnaa ee Laascaanood abaalka ugu weyn u hayso si fiican ayay u waxayeen wasiirkii ugu wax qabadka badnaa iyo dawladda hoose ugu wax qabadka badnayd ma sha Allah magaaladii tobaleenkii si wacan buu uga socdaa si wacan baa loo waxeeyay si wacan baa loo durkiyay dadka in yaro wax ma garataa waa laga yaabaa inaysan waxan si fiican u fahansanayn
laakiin annagu waanu garanaynaa waa ognahay waa fahansannahay inay si wacan ay shaqo fiican u qabteen aad baan maxaad isleedahay toobalenkani magaalada markuu dhammaado uu ka bedeli karaa ama ka soo bixi karaa dee walaal isagoon dhammaan buuba wax badan ka bedelayo waad aragtaa magaaladii waxaa ku dhow waa waasac waxaad arkaysay lambar 1 dabaq ay jingada iyo sandaqada yar ka horeeyaan bilicda magaalada aad u liidatay waxaan ku yidhi jidadkeeda cidhiidh ahaa waxaan ku yidhi haddii ilaahay ku roon yahay wallaahi wax badan aanu koobi karayn bay faa'iido u tahay aad baad maasantay walaal mahadsanid wasaaradihii kala dambeeyay ee Soomaaliland ayaan magaalada Laascaanood wax qabada ka muujin wasaaraddan ayaa waxa moodaa wasaaradii hore inay kaga fiican tahay inay shacabka magaalada Laascaanood si fudud ku hanato iyadoo wadooyinka iyo laamiyada intaba ay ka qaaday sandaqadii iyo dhirta ka hor dhisnayd laamiyada dabaqyada waaweyn magaalada Laascaanood ayaa waxay yihiin galabta kuwa si cad isugu muuqda iyagoo aan dhex oolin wax sandaqada haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay iyagoo ra'yiyo kala duwan ka jeediyay haddaba magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Toobalenku muxuu soo gudbin doonaa muxuu ka bedeli doontaa bilicdeedana yaa u mahadnaqi doona magaalada Laascaanood ayaa gabi ahaanba galabta waxay tahay mid aad u degan Toobalenkana waxaad moodaa shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood inay ku faraxsan yihiin ama inay dawladnimada ay dareemeen intaynu barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaynu kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo